Layaal meeshan waxaan isugu nimid oo dadka ciyaarta golaha guurtida waxgaradka xarunta degmada Garbaharey in aan waxyaabo soo kordhay ama wax nagu cusub oo hadda soo socdo oo in laga hortago u baahan inaan meeshan iska update gareyno oo aan ka tashanaan meeshan isugu nimid sida la socotaanbo haddaan nahay shacabka gobolka Gedo degan annaga 30 sano sidii dawladda Soomaaliya u burburtay dhibaato aad u xun baan soo food saartay waxa la socotaan hadda xilliga aan taaganahay 8 bilood garoomada gobolka Gedo inay xiran yihiin oo loo xiray arrimo siyaasadeed waxa la socotiin inta dhimatay intuu garoonka xirnaa oo la cinqaabay mujtamaca gobolka degan inta qof ku dhimatay waxa la socotiin xujaydi hadda u dambeysay mid kee la sii wadaaba leekii u dambeeyay xujaydi in ay inta ka lugeeyeen Muqdisho lug ku galeen iyadoo oo xilliyadii dambe oo sanadeedii u dambeeyeen aanan wax dhulka ayna shacab ku marin waxa la socotaan in aan annagu salaanka dhibaatada aan noqonay laguna fuulo waxa la socotaan Xasan Sheekh sharciyadii uu sameeyay inuu Axmed Madoobe hadda ku fadhiyo hadduu sharci wuxuu asaga ansixiyay sharcigu ansixiyay ayuu hadda ku fadhiyaa Axmed Madoobe marka sharciga Xasan Sheekh ma laba sharci ba markii uu diiday madaxweynihii hore Soomaaliya ninka sharciyay asagu ahaa hadda haddana asagu sharcigiisii buu ku fadhiyaa annaga waxaan doonaynaa haddii aan nahay shacabka gobolka Gedo annagu cidna ma tahdiidi karto waxaan la hadlayaa askarta amniga ee gobolka jooga hal qof oo mareexaan ah inuu idinku jiro ma jiro mushaarka aad qaadataan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma hadiya asaga idin qoray Xasan Sheekh 100 shilin uu leeyahay wali idin muusoo qorin qofkii isku dayo inuu shacabka gobolka Gedo afka u xiro ama tahdiido qoyskiisu ka garanaya waxaan la soconaa in odayaasha hadalkooda labadan maalin la daba socday oo la tahdiidayay oo telefoon loo soo haday boolis cunuga joogow adeerka baan anigu ma la tahdiidi karin aniga jirkayga gobolka Gedo 19 xabadood baa ku jirto waana jajabana waxaan u jajabay sharafta gobolka inaan ilaaliyo haddana waa ilaalinaya qofna oogama hiibaysanayo taasayda intaas marka loo gudbo waxaan u galayaa wasiir Fartaag لهل لوابا كحب لهل لوابا كحب فرتاج تنقرني ما واحد بدن بعد واحد نوقع نتاعنا ساعدنا أنا قابل تنقر كبا ليش أنا قلت تنقر الجثات هاجن لده ساعدي أنا رجوكتي قبل بنوك على غيبيس تتكلش لي سوات قرنا يسا مريحان إن تكلف لي سوات الكيس قف كستو دن فرتاج كله قبل كده يسون يسوق على كله waxaa soo haray gobolka anaga gobolka iskale inna la male in ugu tahdiidi kartaan ma jiro Xasan Sheekh hadaad waxa leedahay waa aadan yabaale shabaabka koodhanka carruurta walaalaha ay ku haysto ka kacso tan shabaab ma haysto waxaan marka bulshada Soomaaliyeed ayagoo mahadsan ku wacyi gelinaya waxa ka soo baxay xamar waxa gacan ku rimiska ah waxa baxrinta ah inaan gobolkan laga aqbalin cid kasta oo riyootana aan ka yeelin wala mahadsantii shirka galabta wuxuu ku saabsan yahay xaqiiqdii dhibaatooyin gobolka lagu haya in laga hadlo oo la sheegto oo la yiraahdo dhibaatada iyada hana gala dahay shirka sidaas ku saabsan yahay sababtaas waxaa kalifahaya maamulka xamar ka fadhiyo oo sheeganaya in ay Soomaaliya matalahayaan oo ay u yihiin madax حقيقتي مامول كاس مامول كحمر حتى وكلها مامول كا مدحوين ماذا يو حكم كالصوماليات قيبت وكلها وكبح قيس بكو أروسدا ما دام وقيس كو أروسدي هذا قيس ومقر يقولي كره ما أنت إنه نقص أبابله قبل كان قالوا وكسو أبابله أصلا مامول كيسي الأجنهي جبلان waxaan kala kulmay wuxuu namariyay inta ay odayaasha sheegeen way cadeeyeen ay kamid tahay
dhibaatada uu gobolka ku qabto waxa u weyn intii uu farmaajo joogo wuxuu ku taahi jiray ciidamada jooga gobolka Gado oo xuduudiyaha jooga ayuu dhihi jiray waxa la geeyay ciidamada Soomaaliyeed ciidamada difaac lahaa Gadaa la geystay mar alla markuu xukunka qabtayna ciidamadii ku soo duulay waxa la wixii saaniyad ah iyo ciidan ahana waa ka rara wuxuu ka dhigay gobol uu ka tirsaneen gobolada Soomaaliya gobol aan ka tirsaneen buu ka dhigay maantana wuxuu leeyahay gobolkii Gadaa doorasho lagu qabanayaa Axmed Madoobe baa laga dirirayaa Axmed Madoobe baa saan ah maya kuma habboon ma jirto batata wuxuu loo yahay male annaga waxa weeye nin mutaysan kara oo madaxweyne loo mutaysan kara ama la qaadan kara ama aan raaci karno ana hadafkiisa lagu shaqeyn kara ma aha Soomaali nin matali karana ma aha Allah haduu yahay garanayo qodkaas hana daayo dhibaatada iyo harjuunka iyo xaqirka hanaga daayo gobolka naga waa nabad dadka naga nabad buu ku joogaa hana daayo oo hana daayo وسلطان الحاشي ديريا سكير السلام عليكم والله يا waxaan rabaa inaan dhowr qodob meeshan ka sheego meeshan waxa fadhiya gudiga guurtida ee degmada Galbeedey waxa isu keenayna waa xaalad jirta 2025 intay imaadeen ba waxay yiraahdeen haddaan rabnaa Axmed inaan la diro waxaas wax shaqeynaya ma dawladda federaalka xukunkii ay dawladnimo iyo xuduudkii dawladnimo way ka baxday dastuurkii qaranka way burburiyeen waxay samaysteen mid ayaga u gaar ah oo nin baarlamaanka joogo ansax weeye leeyahay oo ansaxiyay waxay rabaan meelba meesha ka xun inay taabtaan waxay yiraahdeen Galbeedey baan imaanaynaayo waxaan ku dhisaynaa madaxweyne Jubbaland way la soo dirireen Kismaayo Raaskabooni baa lagu soo diriray waa ka soo adkaadeen Gado ma loo ooyaanba markii Gado la imaan hayo oo la leeyahay Gadaan dadku ku diyaarinayna Gado rag baa iskale marixaan sida iskale wuxuu san marixaan rabina kama shaqeynayaan waxa aad wadataan oo bacrimiska iyo aad Galbeedey baan la soo aadaynaa aad leedihiin kama shaqeynayaan gobolka Gadana kama shaqeynayaan ninka la yiraahdo Fartaag iyo Axmed Ilka Dheere iyo culuw saddexdaas oo adeegsada Xasan Sheekh Maxamuud hadda ka hor Galbeedey bay noogu imaadeen waxaad wadaan ma rabnaa inaan dhaaf waan naga tageen haddana haddaad noo imaadaan sidii baan idin dhahaynaa wax ka bedelayna ma dhahayn Galbeedeyna rag baa iskale iyo gobolkan Gado ragii gobolkan Gado lahaana waa jooga waxa idinku rabtaan kuma qasbi kartaan sankana kama gelin kartaan haddaad isku daydaan inaad xoog isticmaashaan qasaaro waxaan kama qaadaysaan magaaladana waa noo amni carradana waa noo nabad degmooyinkana waa noo xor dastuur qalad oo idinku aad burburiseen oo aad ku soo tumateen oo lama imaan kartaan anigoo ah suldaankii beesha sade waxaan galabta idin sheegayaa Galbeedey inaadna ku samayn karin maamul gacan ku rimisa oo looga soo horjoodo Jubbaland lagu jijibinayo galabta waxaan isku imaanay meeshan waxa weeye talo annaga Xasan Sheekh Maxamuud markii madaxweynaha laga dhigay waan u yeernay markaati bay leedahay hawlaan soo xirnay geel lagu martiqaaday baan soo xirnay noo imaano wala diiday sawirkiisa meel kastaan dhignay haddaan reer Galbeedey nahay wuuna diiday waxaa dhacday inay buundooyinka go'een kamuusan hadlin hala yaab leh kuwa hadda ordahayo hadda ka horna noo imaaday oo runtii waxaas garanahayo ila adeegooda ay noogu imaanayaan hadda waa arrin la yaab leh weeye kuwa noo imaanayo Xasan Sheekh Maxamuud soo diray Xamse waa nimanka ku duulay Raaskabooni Kismaayo umada degan oo nabadda u degan Raaskabooni dagaas ku kama dhicin aniga hadda hadlahayo geeliga xabada ku dhacay meesha daaqay xaqadi saasu marka arrintii Raaskabooni oo rag loo xirxirin
والمحكمة لكينين إنا هذا ما أنت صعدان وانا سبترو ساسا كوغانيسان دولدو إننا عقب تاغني مرد دونتو كرباري إيش الوقت كرباري أنا قاعد هذا قدوية قلت وحانا هاي مدى الصوماليات بيش السري mana qaadan karno mana qaadanayno wax yaani gacan ku rimisa xalleena wiilashana mas'uuliyiinta oo bahalka la yiraahdo ama xamar ha joogeen ama hanala joogeen wuxuu waa taariikh haddaad adinku dhowr boqol haysataan shacabkiinni baa dhumay deegaankiinni baa dhumay siyaasaddiinni baa dhuntay jiritaankiinni baa dhumay sharafkiinni baa dhumay magaciinni baa dhumay waana taariikh weyn in kama xigna dalka iyo dadka nin walbana diiwaanku waxbuu ku qori doonaa ummaduna waa jiraysaa waana jiri doontaa waxaan leenahay waxa dadkiina iyo dalkiina iyo sharafkiina iyo karaamadiina iyo magaciina iyo mas'uul maantana eed gaar ah leedino mas'uuliyad baad haysaan oo aad ku haysataan dadka gobolka Gado iyo magaciisa yaad haysataan haddana taariikhda aad ku shaqaysataan sida waa dhaqan yahay ma dhamaanayo adinka in hoos imaan wiilasha ciidanka oo 200 qaadanaya anaa dhalay kii anigu aan dhalay inuu 200 garto ma jiritaankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo magaciisa la garan waayo waa nasiib daro waxaan leenahay walaalayaal in kama xigna dalka danta in kama xigno nolosha in kama xigno karaamada iyo sharafka in kama xigno dalkaad u dhalateen waxaan dhumahayaana waa magaciina iyo sumcadiina iyo jiritaankiina maantana shaabad gaar ah in saaro mas'uuliyadda ragga sheeganahayaati waxaad ku hesheen waa ummadda iyo magaca inaad maanta god kale xabal waa ka soo daalay dil waa ka soo daalay dhac waa ka soo daalay subxaan xumo waa ka soo daalay karaama la'aan waa ka soo daalay wax bahaba waxay ka xuyeen waa soo maray maanta inaad dhibtir aan noo soo xambaartaan raalli kuma ahin aan noo soo xambaarina tasheena aan ka tashano danteen isku mabda baynu mas'uuliyiinta nadiibatii annaka mas'uuliyiin loo tii ama degmada jooga ama meel kale jira gogol aan danteen uga tashano daawadeena uga tashano jiritaankeena uga tashano wixii wax naga jiraan kula xisaabtano wixii naga maqan aan ugu yeerno oo degdeg ah aanu dhigno shir wada jir ah oo maamulkeena iyo odayaasheena iyo dhalinyaradeenna iyo haweenkeena iyo magaceena iskugu nimaado maanta waxaynu saaranahay god qarkiisa inuu taagay mareexaan god dheer qarkiisu taagay sideen uga baajin lahayn godkaas ayna ugu dhaceen annagoo meydhaan dul dhaanlay wartaleeda aan iskugu nimaado waxaan meeshaan isugu nimid odayaal reer Galbahaari ah oo gobolka Gado Galbahaari jooga waxaan ka hadlaynaa arrimaha soo cusboonaaday oo xagga dawladda nooga yimid arrimahaas ayaga ah maamulkii nala joogay iyo annagii iskumaanaan aqbalin ayaguna nagalama tashanin sidaas awgeed baan ugu kaliftay inaan arrintan ayada aan ka hadalno arrinta la soo wado oo dawladda dhibaatadii hore inoo geysatay ayada oo wax bedela aan la arag inay nasi dhibaatayso bay go'aansatay arrimaha ay wadato oo ay ka hadlayso arrimo annaga dan noogu jirta ama aan aqbali karna ma aha mana aqbalayno mana noogu imaanayso barnaamijka Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay wataan Galbahaari kama annaan soo dhaweynin kamana soo dhaweyn doono arrintaas ayada ah noogumana imaan hayaan hadda imaadaana wixii ka imaada ayaga iska leh